aad buu mahadsan yahay wariyaheena maxamed cabdinaasir ayaanle oo ka mid a wariyaasheena telefishinka caalamiga ee universal ee magaalada muqdisho markana puntland waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka ambabaxay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland isagoo u kicitimay wadamada Itoobiya iyo istaga Imaaraadka Carabta. safarka madaxweyne gaas waxa uu ku soo beegmayaa xilli abaara baahsan ay ka jiraan guud ahaanba puntland soomaaliyana ay la wadaagaan abaarahaasi iyo meelaha qaar oo nabadgelyo darro laga soo sheegay iyadoo baarlamanka puntlandna dhowr jeer ay ku celceliyeen safarka cabdiweli gaas inuu yahay mid aad u tiro badan marka loo fiiriyo ama la barbar dhigo madaxweynayaashii soo maray puntland oo ay ku sheegeen wax faa'iido haba yaraatee inaan safaradaasi aanay ka soo hooyanin warbixintan waxaa inoo soo diray cabdiqani sheekh cabdulaahi wariyaheena oo safarkaasi inooga soo warramay safarka cabdiweli gaas oo kusoo beegmaya xilli deegaanada puntland ay ka jiraan abaaro amni darro iyo cabasho iyo gadood ciidan oo gaadhay meeshii ugu sarraysay ayaa inta uusan dhoofin warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso isagoo ka warbixiyey ujeedka safarkiisa iyo dalalka uu ku wajahan yahay. waxaan maanta aan babaxayaa socdaal halis buu qaadanaya oo aan ku tagi doono dalka Itoobiya iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo uga qayb gali doono aadi doono hawlo la xiriira amniga iyo nabadgelyada iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland waxaan ka rajaynayaa inuu nagu soo guurayo socdaalkaas wax badanna uu taro aanu ka helno insha Allah dabadeedna wadanka ayaan ku soo laaban doonaa waxaan ku dardaarmayaa dadka Puntland markasta ay joogaanba inay ka shaqeeyaan nabadgelyada xasiloonida iyo karaamada iyo sharafta dalka lana ilaaliyo lana dhowro ayaan ku dardaarmayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin. madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa safarkiisu waxa uu dhan kale ku soo beegmayaa xilli waxgaradka iyo odayaasha puntland ay xaliyeen in la fasaxo gaadiid ku xanibnaa muddo 48 saaca kantaroolka koonfureed ee Garowe kadib markii ay qabsadeen ciidamo gadooday oo ka cabanaya mushahar laan soo food saartay. qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka puntland ayaa dhowr jeer madaxweynaha puntland kala hadlay safarada badan ee uu dibadda ku aado kuwaasoo ay ku tilmaameen inaysan macno badan soo kordhin marka loo eego lacagaha faraha badan ee ku baxa. mudane madaxweyne safaradu waa bateen oo safarada madaxweynuhu waa badan yihiin dhaqaalaheennuna waa kooban yahay miyaanay ahayn si dhaqaalaha loo beeqaamiyo safaradaada inaad soo gaabiso ilaa haddana ma hayno wax mira dhala oo safaradaadu keeneen oo nooma aad sheegin waa su'aalaha dadku annagana weydiiyaan. cabdiweli gaas oo muddo 3 sano ah xilka madaxweynaha puntland haya xilligan ay hareeyeen marxalado adag oo ka dhashay ka gaabinta bixinta mushaharaadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada puntland waxaa la isku raacsan yahay inuu yahay madaxweynuhu ugu safarada badnaa marka la barbar dhigo 4 madaxweyne ee xilkan ugu horeysay. cabdiqani sheekh cabdulaahi hirbad Universal TV Muqdisho.